بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا لله وإنا إليه راجعون. ومدى الصومالية مالك السؤال ay joogto waxaan ka tacsiyeynaa kow marka ugu horeyso dadkii abriyada ahaa ee walaalaha ahaa ee maanta goobtan ku naf waayay ilaahay ha u naxariisto jannadii firdaws Allah ka waraabiyaan leenahay inta dhaawacaana ilaahay ha caafiyo Allah u boogadhayo inta kadib waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed ummadda ugu weyn caawa halkan aan u soo istaagno waxay tahay walaalayaal inaan fahamno nimankan ujeedada ay ka leeyihiin waxa ay sameeyeen dadka meeshaan maanta ay ku laayeen 5 sano kadib bishii Oktoobar sanad guuridii shanaad haddana maanta inay ku soo noqdaan halkan ay dad Soomaaliyeed abriya ku laayeen dadkan iyay ahaayeen dad Soomaaliyeed oo ka soo kabanayo dhibaatadii nimankan ay u geysteen 5 sano ka hor kuwii dhaawac ahaa ee soo biskooday kuwaan daalmay oo curyaamiin dhinac ka ah kuwa agoon ah oo waalidiintood iyo walaalahood iyo dadkooda ahalka ah oo ku baxay iyo kuwa kale intaba gabdha Soomaaliyeed hooyo Soomaaliyeed oo saaki u soo baxday in ay maxaan ku iraahday ilmaheeda maanta qadadii cun lahayn caawa cashadii cun lahayn soo raadisay arday wasaaradda tacliinta saf ugu jirto in shahaadooyin ay ka qaadato muslimiin masaajidka maxaan ku iraahday joogay ama ka soo baxayay meesha ku yaala iyo dad saf musaafiriin ah oo jidka ku safrayo jidka maray dadka Soomaaliyeed oo walaalayaal maxaa dambi ay galeen dadka maxaa loo dilay qof cudur daari karto oo xataa sabab macquul oo la fahmi karo sheegi karta ma la arkaya sabab yani macquul oo dadka loo hadaf looga dhigto loo waxay nimankan waa nimankaas waa khawaarijtaas waa arxan laawayaashaas sidaasay soo ahaayeen nimankan iyo annaga ummadda Soomaaliyeed ee muslimiinta ah dagaala ka dhaxeeya saacadaas aan idin la hadlayno qaybo badan oo dalka ka mid ah ayaa xabad ka socota habeennimadan haddii ay tahay galmudug haddii ay tahay hirshabeelle haddii ay tahay koonfur galbeed iyo haddii ay tahay jubbaland intaba dagaala ka socdo saacadan habeennimo ah oo nimanka khawaarijta lagula jiro geesiyaasha ciidanka qalabka sida Soomaaliyeed ay kula jiraan nimanku waa isdileena dagaala naga dhaxeeyo laakiin waxa la dagaalamaa qofkii kula dagaalamayo qofan kula dagaalamay gabar ganacsi yar meel ku haysata wiil arday oo saaka soo dheelmado shahaado soo qaaday isla imtixaanaadkii aad ka baxday shahaadadooda soo qaaday aad jaamacad aadid isla kuwa kale oo safrayo jidka saarnaa oo afgooy u socday ama ka yimiday kuwa isbitaalka banaadir tagay ee ka soo noqday yani dadka meesha maraya dadkaasi ahay ilaa hadda tirada dhaawacay tirada dhimashada oo weli sii kordhaysay dhimashadana waa 100 dhaawacuna waa 300 ku dhawaad dhaawacyo kalena way soo bixi doonaan dhimasho kalena way soo bixi doontaa waa taariikhdii zooba labaad waay arrintan waa isla meeshii waa isla goobtii waa isla noocii dadkii sax maaha ummadda Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa ilaahay idankiisa Oktoobar kale oo sidaan oo kale ilaahay idinkiis ma dhici doonaan awood iyo fursad iyo kashaashimo ay sidaan ku sameeyaan ma heli doonaan haddana waa noolnahay waa waxooda ogaada niman jabay dagaaladii looga adkaaday bannaankii looga adkaaday ciidankii u adkaysan waayo ka hor imaan waayey
inta soo daba mariyay muxuu ahaay dadkii abriyada ah ee maxasti gadaalka gumaadaya waay waa ka adkaanayna waana ka adkaanay haddii aan leeyahay ummadda Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u sheego baabuurka qarxay alaabta isku rakibneedoo qarxday xaggee ka yimaadeen beer shabaab leeyahay biyay ka soo baxeen warshado shabaab leeyahay biyaha muxuu ay ka soo go'een oo laga soo saaray lacagta walaal kale oo Soomaaliyeed oo bixiyay waay waxa dadka naga maanta halkan ku leeyahay walaalka Soomaaliyeedo cabsiya ii geysay shabaab ra'yigoodan jecelahay laakiin dadka maanta meeshan ku dhamaaday dadka dhaqaalaha bixiyay kii baabuurka ka iibiyay kii gurigiisa ay joogeen kii garaashkiisa ay soo mareen intaas waay qof kasta oo shabaab gacan u fidis macaamil la yeesh qarisa dhaqaala siisa dadka ayadaa dishay dadka aad dishayna waa noocaas ogow askari dagaalamayo oo soo taagan oo fronta ku jira ma ahayn hooyo hilib gadaysa mid maxaan ku rahaa khudaar gadaysa iyo wiilka yarka ardayga gabadha yarka ardayda ay shahaadada qaadanaysa iyo wadaadka masaajidka u sii socday ama ka soo baxay iyo kaa kale musaafirka ah ee wadada saaraa dadka la'da waa dadka ka fikir xanuunka ay leedahay caaw ka fikir lacagta aad bixisay tolow meeqa ayay ku lahayd qaraxan iyo dadka geystay iyo qalabka lagu geystay cudurdaar adduunyo iyo mid aakhira ma leh inaa shabaab dhaqaale siisid inaa qarisid inaa ka baqdid meeqa ma laga yaabaa kuwa lacagta dhiibow walaalihiin wiilashiinni gabdhahiinni kuwa aad jeclaydeen oo idinla dhasho axibada ahay inay ku jireen maanta adinkuna aad lacag dhiibteen inaad ka badbaadid adiga shabaabaa idilaa intaa bistoolad la iiga haya saanaa la iyeelaa taleefonaa la ii soo diray cabsi daraaddeed inaad lacag inta u bixisay walaalkaa kale lagu dilay lacagtii suurtagal ma tahay xisaabtan isweydii adigu lacag bixiyaha shabaabow isweydii war khawaarijtu arxanna ma leh islaamnimana ma leh waxay ku tooran yihiinna ma leh waa ka adkaanay waana ka sii adkaan doonnaa intaa kadib waxaan rabaa inaan dadka Soomaaliyeed ka codsado dadka walaalaha ah ee dhibaatadu gaartay isbitaallada yaalla berri in dhiig la bixiyo horta waxaan ku baaqaynaa isbitaallada in dhiig la siiyo la tago dhiig lagu tabarruco haddii aan leeyahay ilaahay hortiisa iyo gargaar ummadda loo gargaarayo qodobka labaad cid walba oo wax u qaban karta qof walaal oo halkan ku dhaawacmay iyo qof walaala oo halkan ku geeriyooday eheladiisii iyo ilmihiisii qof kasta wax u qaban karta inuu qabataan rabo dowladda Soomaaliya ka madaxweynaha jamhuuriyadda ahaan ummadda Soomaaliyeed dadka halkan wax ku gaaray ee khawaarijtu ay dhibaataysan maanta iyo kuwii 5 sano ka hor ay dhibaataysay iyo kuwa kasta oo ay khawaarijtu dhibaataysay carruurtooda dowladdu in ay waxbarasho free ah siiso ayaan caawa halkan ka ilaaminayaa wasiirka wasaaradda tacliinta waxaan farayaa in dhallinyaradaas ilmahaas agoontaas waxbarasho dowladdu ay u hesho free ah oo aan bisha aakhirkeeda aawi lacagtii tuwishinka $10 aan lalahayn inay u hesho sida ugu dhaqsiya badan haddii aan leeyahay wax kastoo kaloo daryeela oo dowladdu ay heli karto ama soo haaba kartana waa la raadin doonaa guddiga la magacaabay waxaan ka codsanaynaa dadkaasi inay meel ku ogaadaan soona diiwaan geliyaan haddii aan leeyahay caalamka walaalaha Soomaalida iyo walaalaha kale ee muslimiinta ama saaxiibada ee caalamka ku nool waxaan ka codsanaynaa Soomaaliya in dhaqaatiir loo soo diro ka kaalmayso isbitaalladeena
dhaawacyada qaarkood dadka tiradooda intaa la eg tahay inaan dibadda u wada daabulnahay nooma sahlana waxaan codsanaynaa isbitaalladii waan haysannaa aqoonta naga maqan een dibadda u aadayn ayaan codsanaynaa cid allaale iyo ciddii kari kartaa inay noo soo dirto wasaaradda caafimaadkaa cilaamin doonto oo sheegi doonto waxaan codsanaynaa in si degdeg ah loogu soo gurmado dadkaas dhibaataysan isbitaallada yaallo dibadda uma wada qaadi karno wakhtiga aan fasax iyo awood iyo diyaarad dibadda u qaadda aan helaynaa ane wax badanaa dhibaataa dhacay ama dad badanaa adeecaa u dhimanaya waxaan codsanaynaa in nalala soo gaaro dhakhaatiir iyo daawo dadkaas khawaarijtu ay dhibaataysay maanta meeshaan shil ku dhacay ee boqolaalka gaaray lagu daaweeyo lagu dabiibo haddii aa la yidhaah dowladdu hay-ad kastoo dowladeedna waxaan faraynaa inay u istaagto daryeelka dadkaas daawo loo helo ilmahoodii la dabagalo kuwa maxaanku rahdaay xanuunsanaya la booqdo kuwa dhintay allah u naxariisto loo duceeyo in ilaahay jannadii firdowsa ka waraabiyo waxaan leeyahay walaalaha soomaaliyeed ee muslimiinta meel kastoo joogaan cabsida iska yareeyaano ha ka kaaftoomaano inay cabsi daraaddeed walaalkood kale u dhinto adiguna maantaad dhimanayd umaad dhimanaysaa kana soo hormari maysid kana dibdhici maysid cabsidu caqiidadaada ayay meel uga dhacaysaa iyo iimaankaaga cabsida aan ka adkaano khawaarijtana aan dhammaystirno way dhammaadeena aan dhammaystirno inta dhiman dadka soomaaliyeed dagaalka ay u istaageen inay khawaarijta iska qabtaan waa ku hambalyaynayaa waa bogaadinayaa waanu u tacsiyeynayaa dagaalaan ku jirnaa dhimasha waa la kulmaynaa nin naflacaari ah wuxuu sameeya berida baan la kulmi doonnaa laakiin dadka soomaaliyeeda ka badan ka xoog badan ka awood badan ka dhaqaalo badan ka saxsan oo waddadii saxda eed ku taagan meel dheerna lama tegi doona inadaa inkiis aad iyo aad aa u mahadsantihiin